anigoo xafiiska fadhiya ayaa leegu yidhi sheekh waxa la keenay mayd baa la keenaye kaalayoo aad maydhide dabeedna wuxuu yidhi waan sidii dabiiciga ahayd baan kacay markii aan kacay ehelkiisii iyo qaraabadii iyo wixii baa ku jiray gudihii waxaan ugu galay dadkii maydka dhigay oo uu nin xanaaqsan aad mooddo inuu xanaaqsan yahay leeyahay baxa dhammaantiin baxa aniga mooye baxa wuxuu yidhi waan yaabayoo waxaan isidhi talow ninkan dadkii kaloo dhan wada saarayaa malaha waa walaalkii ama waa ma garanaysaa maydka waabbihii ama dabeedna wuxuu yidhi waan baxay qolkii maydkaan ku jirnaa meel yaroo ii goonniyoo dharkaygana aan dhigto dharka maydka aan ugu talagalay inaan ku maydhana ayaan soo xidhay galoofiskaygii waxaygii intaa diyaarsanayey ayuu dadkii wada saaray dadka qaar baa baryayoo le maya anigu aan kula joogo maya baxa markii aan u soo galay baan ku yidhi buu yidhi ma keligaa may cid kaleaynu u baahannaho maydka inala qaqabataa oo inala diyaarisa oo dee inala maydha wuxuu yidhi maydka weli daboolka kamaan qaadin iyo maradii la huwiyey dabeedna wuxuu yidhi may buu yidhi sheekh waa anigoo keliya dabeedna waxaan ku yidhi buu yidhi waayahay waan bilownay sidaa markii aan uga qaaday go'yii maydkii ayuu qaylo aan nooceedu caadi ahayn ku dhuftay buu yidhi aad buu u qayliyey maaha maydkii ninkii noolaa ee dadka kala saarayey ayaa qayliyey dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku yidhi waa la wada dhimanayaa halkani waa halkaynu ku wada dambaynayno isagana u ducee qaylo iyo buuq waxba tari maayo qalbigaaguna xamili maayee walaalaha kale aan u yeedha ee ha soo galaana adigu bax may buu yidhi anigaa kula maydhay waayahay baan ku yidhi haddana mar labaad ayuu wuxuu yidhi markii aannu isnidhi bilaaba ayuu sidii oo kale wuxuu yidhi waan fajaco waxaan yidhi waa ninkan maxaad isu tihiin horta dabeedna wuxuu yidhi sheekh wax weyn baannu isunnay ma walaalaad tihiin may walaalo ka badan baannu nay ma adiga maxaa ka badan ma adigaa dhalay ma dhali karo waa nina isleegyihiin ma adiga dabeedna wuxuu yidhi maya sheekh waxaasoo dhan wax ka weyn baannu nay oo maxaad tihiin wuxuu yidhi laba aqaloo isku xiga ayaannu ku kala dhalannay jaar baannu ahayn welibana sida waalidkayagu noo sheegay gelinkii hore iyo gelinkii dambaannu kala dhalannay iskuda' baannu nahay meel baannu ku soo wada kornay waalidiintayadu saaxiib bay ahaayeen labadeeda aabbo iyo labadeeda hooyaba saaxiib bay ahaayeen annaguna saaxiib baannu noqonnay madrasad mida baannu ka wada baxnay dugsi hoose dhexe sare meel baannu ka wada baxnay jaamicad baannu wada gallay jaamacadda isku kulliyad baannu ka wada baxnay waxaannu noqonnay baayac mushtari shuraako wax wada yeeshay baannu noqonnay laba habloodoo walaala'a baannu kala guursannay labadeeda xaas xataa walaalay ahaayeen wuxuu ahaa noloshayda oo dhan rafiiqaygii iyo saaxiibkaygii runta ahaa dabadeedna wuxuu yidhi waxaan ku yidhi de inna lilaahi maa akhada walahu maa acta ilaahay baa dee saaxiibkaa ku siiyey wuxuu yidhi qur'aankaannu wada xifdinay weliga iyo khayr mooye xumaan isumaannu kaashan wanaaggaa iyo khayrkaas waalidkii saaxiibka ahaa nagu soo barbaariyeen ayaa annagana ilaahay magaranaysaay bartii nooga sii bilaabay oonu ka sii wad wuxuu yidhi waannu aasnay maydkii waxaannu ku aasnay maqbaradii iyo qabuurihii meel nambar baannu ku aasnay wuxuu yidhi masaajidkaa aan joogo iyo meelaha qabuuraha aan mas-uulka ka ahay ma dhacda buu yidhi maalintii in aan shanta salaadood buu yidhi shanta salaadood inaan salaad walba jinaasad la keenin oo lagaga tukan oon qabuurahaana la geynin ma dhacdo waa ilaahay cilmigiisee maalintaa waxaannu aasnay oo keliya ninkaas waxa rawaxay dadkii dee qabrigii waa laga tegey waxaa la yidhaahdaa xabaaliyo ninkeed loo kala teg waa kuwa soomaalidu yidhaahda sidii buu allah yarxamu ku geeriyooday oo qabrigiisii iyo gurigiisii runta ha lagu dhigay waxaa cajiiba
ninkii saaxiibkiina markuu gurigii tegey ayuu intuu fadhi ku fadhiistay fadhiyadan yar gaagaaban ayuu sidaa u jiqilaystay in yar ka bacdina halkii bay naftu kaga dhacday waxaana lagu aasay qabrigii ku xigay waxa u dhaxeeya uun qabuuraha sacuudiga sida loo sameeyo dhowr jeer ayaan tegey dabadeedna waxaa la samaynayaa waa la dhisayaa sidii binaadoo kale loo dhisayaa gidaar yar baa u dhaxeeya labada qabri gidaar yar ayaa u dhaxeeya xaggaana saaxiib bay ku noqdeen oo waa kuwa dee jaarkii ayay noqdeen allahu akbar wayaa lahaa min suxba saalixa alla saaxiibtinimadaasoo kale fiicana oo wanaagsana